gudoomiyaha guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug oo uu magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha Galmudug ayaa ka warbixiyay howlahooda horyaalla guddiga iyo sida ay wajahayaan dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Cabdinaasir Geelle Cilmi oo ah gudoomiyaha guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug ayaa sheegay in ay gudagali doonaan hawsha qaybta labaad oo ah xareynta odayaasha dhaqanka si ay u soo xulaan xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug isagoona u mahad celiyay ciidamada sugaya ammaanka caasimadda dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan goobta ay ka dhici doonto doorashada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb. Sidoo kale guddiga ayaa maanta waxay kormeer ku tageen xarunta shir kale halkaasi oo lagu wado in la dejiyo odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. maanta waxaa sharaf iyo karaamo noo ah inaan soo booqanay xaruntii shir kale ee loogu talagalay in maaragtay ay ka dhacdo in odayadii reer Galmudug ee qaban lahaa shaqadii dib u dhisidda maamulka Galmudug oo bilaaw u ah in maamul loo dhan yahay laga dhisay Galmudug aan soo booqanay soo indhaynay oo soo aragnay maaragtay inay tahay meel ku habboon in maaragtay lagu qaban karo oo odayaashii la deji karo oo maaragtay ay ka dhici karto doorashadii iyo dhammaan dhamaystirkii maamulka Galmudug. aad bay noo cajibisay wixii aan soo aragnay waana wax maaragtay lagu farxo. mahadaas waxaa iska leh maaragtay dowladda federaalka ah oo qayb lixaad ka qaadatay in maamul Galmudug oo dhammaystiran dib loo dhiso. waan u mahad celinaynaa shacabka Galmudugna waxay u hayaan maaragtay abaal iyo reynreyn wayna ka mahad celinayaan. mahadda kale waxaan u jeedinayaa shacabka Galmudug ee ayaguna iska xil saaray in ay maaragtay maamulkan inay dhistaan gacmahooda la soo galay qayb ka qaatay ka shaqeeyay muujiyay bisayl soo dhaweyn iyo inay rabaan maaragtay maamul ka turjuba rabitaankooda ayagana waan u mahad celinaynaa. maaragtay waxayna noo tahay farax iyo sharaf iyo karaamo in maaragtay reer Galmudug ay fahmeen muhiimadda ay leedahay maamul iyo dowladnimo. waa wax lagu farxo oo maaragtay aad iyo aad u qiimo badan. hadda wixii ka dambeeyana waxaan gelaynaa in hawshii qaybteedii labaad oo ah qaybtii uguna muhiimsaneed in odayaashii aan keenno oo la xareeyo oo processkii xulistii xildhibaanada oo bilowdo ayadana insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan hawshaas u gelaynaa. waxaan ayaduna mar kale la soo koobi karin maaragtay qaybta libaax ay ka qaateen ciidamada amniga heer federaal iyo heer maamul goboleedka sugidda amniga iyo maaragtay adkeynta amniga iyo sida ay waqtigoodii iyo naftooda ugu horaan inay maaragtay xilligan xasaasiga ee kala guurka lagu jiro ay maaragtay qayb libax ka qaataan ayagana mahad ballaaran ay u jeedinaynaa. waxaan rajaynaynaa wax yar ka noo dhiman haddii Ilaahay yiraahdo inay si nabad ah ugu dhamaystirnaan wada hadallada iyo dib u heshiisiinta iyo midnimada Galmudugna waa muqadas. waxaan rajaynaynaa Ilaahay hadduu yiraahdo inay si qurux badan noogu dhamaato. Maxamed Cabdiqaadir Silva, Galmudug TV.